بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينين مروين بكسر لواذا وررتي عالمك نوصل عليه هل كان وايدا عدا متشرنك صد حيس صد هذا مدينين consulka guud ee u fadhiya dowladda federaalka Soomaaliya Saudi Arabia Cabdiwale Xirsi Cabdulle xafiiskiisa lagu wareysanayo ayaa wuxuu ka warramay xiriirka Sacuudiga iyo Soomaaliya oo dib ugu soo nooleynayo iyo maxaabiistii ku xidhna jeelasha iyo qaarkood dilka lagu xukumay iyo qaar kale oo jeelasha ku jira. haddaba bal muxuu yidhi inoo dhegeyso. waxaa noo qabsoomay ama noo qabsoomi karay waxay ahayd kow sida mas-uul kastoo xil loo magacaabo wuxuu ka bilaabaa shaqadiisa inuu ogaado wuxuu u xil saaran yahay hay-adda loo magacaabay. taas darteed waxaan ka howlgalay inaan ogaado shaqada dhabta ee qunsuliyaddu u idman tahay ee laga rabo inay qabato iyadoo la raacayo shuruuc sida Vienna Convention 1963gii oo qunsuliyadaha guud laga rabo iyo sharciga shaqada wasaaradda arrimaha dibadda iyadoo kuwa la raacayo baan horta xayndaabkii soo ururiyey oo shaqo qeexidii iyo sameynay kabacdina waxaan u qaybinay dhammaan waaxyaha ay ka kooban tahay qunsuliyaddu waax walba waxaan u qornay qoraal waxay qaabilsan tahay iyo shaqooyinka laga rabo. waxaa noo qabsoomay waxaa ka mid ah dayactirka xafiiska qunsuliyadda guud ee Jidda ay ku shaqeyso. waxaa noo qabsoomay inaanu qalabayno wax allaala wixii qalab ka dhimanaa qunsuliyadda xafiisyadeeda ay ku shaqeyn lahaayeen inaanu qalabayno oo sida hadda arkaysaanba dhammaan xafiis aan qalabkii loogu talagalay hadduu noqon lahaa kuraas iyo hadduu noqon lahaa miisas iyo hadduu noqon lahaa kombiyuutarro dhammaantood waa habeynay. consulka guud Soomaaliya ee magaalada Jidda mudane Dr. Cabdiwale Xirsi Cabdulle oo xafiiskiisa ugu warramayay warbaahinta qaranka ee Soomaaliya ayaa waxaa intii ay socotay daqiiqadaha wareysigaasi uu consulka guud Soomaaliya u muuqday mas'uul ku gaashaaman ilayska aqoonta khibradda iyo waayo-aragnimada maareynta maamulka howlaha dowladda wuxuuna isagoo tibaaxaya taabagelinta qorshaha wejiga labaad ee howlaha qunsuliyadda uu sheegay. waxaa markaan aan u dhaqaaqaynaa inaan dhammaystirno dhammaan waxqabadka la rabo oo wixii horey u qabsoomayna loo horumarin lahaa wixii aan qabsoominna loo qaban lahaa. maalan qunsuliyaddu waxay ku jirtaa xafiis kira ah waxaan rabnaa inaan ka saarno oo dhismo ay leedahay ay xafiiska ay ka yeelato taas oo aanu amiirka mandiqadan xukuma aanu dalab u gudbinay oo aan rajaynayno ilaahay idinka dhawaan inaan la kulanno oo dalabkaasna aan jawaab rajo fiican ka qabno inuu dhulna siiyo hadduu dhulkaana siiyana annaguna aan dhisano oo annagoo kaashanayna dowladda Soomaaliya ganacsatada Soomaaliyeed dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo dhammaan dadka khayrka jecel oo dhanba inaan kaashano xataa annaga diyaar u ah ka qunsuliyad ahaan inaanu ka qayb qaadano hawshaas. sidaa daraadeed xafiis waxay yeelan doontaa qunsuliyaddu iyadoo ay leedahay oo ay ku shaqeyso. labo waxaan jecelnahay inaan horumarino dhinaca ganacsiga oo dowladdii Soomaaliya intii ay burburkii Soomaaliyana soo gaaray waxaa hoos u dhacay ganacsiga Soomaaliya iyo Saudi Arabia oo wadanka koowaad awal ahaa ayaa hadda waxaa moodaa in laga hormaray wadamo badan ay ka hormareen. sidaa daraadeed waxaan rabnaa inaan xoojino oo sidii hore u ahaan jiray iyo si ka fiican baan ka dhigno waliba ka wanaajino oo khayraadka wadankeena laga helo sida xoolaha nool xoolaha laftooda iyagoo qalan kalluunka maydiga iyo beeyada iyo xabkaha macaadinta khudrawaadka
iyo waxyaalaha kale oo beeraha ka soo baxo inaan dhammaantood waddanka keeni karno. haddaba intaasi kadib ayaa waxaa qunsulka guud Soomaaliya ee magaalada Jidda mudane Dr. Cabdiwali Xirsi uu dareenkiisa ku sii jeediyey maxaabiista Soomaaliya ee ku jirta jeelasha Jeesaan iyo Najraan ee koonfurta dalka Sacuudi Arabia, wuxuuna si kooban oo xigmad leh uu uga warramay arrimaha iyo xaaladda guud ee maxaabiistaasi. maxaabiis badan baa Sacuudiga ku xiran, waxay isugu jiraan dad lagu qabtay sharci darro, dad lagu qabtay tahriib ay meesha ka soo gudbeen, iyo dad dunuub kale yaryar lagu qabtay, iyo dad lagu qabtay dunuub waaweyn oo sida xashiishad iyo daroogo iyo waxsaas oo la soo geliyo waddanka. marka Sacuudiga sida aad sharcigiisa aad ogtihiin wuxuu qabaa daroogada ama xashiishada dadka lagu ku yima waddanka soo geliya iyo dadka dila waa dil. sidaa darteed waxaa jira dhalinyaro number ah oo daroogo lagu qabtay oo waddanka iyagoo soo gelinaya la qabtay, kadibna way badnaayeen dabcan 180 iyo something bay ahaayeen. in badan waa la sii daayay oo daroogada iyo kale qadar iyo waxbaa jirta oo maaragtay amountiga cadada daroogada kala duwan iyo dadaal badan oo la sameeyayba. laakiin waxaa jirta number kale oo 40 ah oo weli xiran oo iyagana haddii ilaahay ogolaado aanu dadaal badan ku sameynay hadeer ilaahay idankiis rajan badan fiican aan ka qabno. dowladda Sacuudiga aanu tagnay hay'adaha ay qusayso oo dhan, dowladda Soomaaliya waa u gudbinay wax allaale wixii fariina iyo xaaladda dhalinyaradaas ha noqoto wasaaradaha ay qusayso ilaa madaxweynahana hawshaas si fiican bay uga wada socdaan. dadaal badan baa socdo aan rabin inaan ka hor dhaco. علي جامع علمي على كوس راديو تلفزيون خارج الصوماليا سعود